السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا حديث كينا مانتا إن شاء الله تعالى وحان كفيرين دونا حق المسلم على المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العادس. متفق عليه. حديث أبي هريرة رسولك ورنا صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوليه حق المسلم على المسلم 5. حق مسلم كأو كان كلا كليه مسلم كلا كليه وشن. رد السلام، سلام تقول الرديو قفك ولالك مسلم كادوك سلامو إنا كرديسيت وحق. وعيادة المريض، كان جيران ولا بوقضو قفك مسلم كأو جيران إنا بوقتيت waxay ka mid tahay xaqa ay muslimiinta isku leeyihiin. waatibaacu aljanaa'iz, janaasada qofka dhimatay ay muslimka ah inaad janaasadiisa raacdid waxay ka mid tahay xaqa ay muslimiinta isku leeyihiin. wa ijaabatu dacwa, midka kuu yeeray inaad ajiibtid iyadana waxay ka mid tahay xaqa muslimiinta ay isku leeyihiin. wa tashmiitu alcaadis, kan hintisay ee hindhishay inaad ka farxisid oo aad maaragtay alxamdulilah markuu dhaho yarxamuka allah dhahdid iyadana waajib ayay kugu tahay oo waxay ka mid tahay 5 xaqa ay muslimiinta isku leeyihiin. muttafaq waaye xadiiska waa muslim iyo bukhaari. xadiiskan arrimahan ku sugan runtii aad iyo aad ay muhiim u yihiin nolosha muslimiinta. nabiga calayhi salaam wuxuu ka dhigaa dadka muslimiinta dad isku xiran maadaama ay isku diin yihiin, ay hal rabbi isla caabudaan oo ay hal nebi isla rumaysan yihiin. sidaas darteed ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay raddu salaam, waciyaadatu almariid, watabaacu aljanaa'iz, waijaabatu dacwa, watasmiitu alcaadis 5 waajib ee ugu muhiimsan runtii in dadka muslimiinta ay dhex marto macaamilnimo wanaagsan ama si wanaagsan ay iskula dhaqmaan oo qofka ku salaama ka radisid, qofka jiran aa booqatid, qofka dhimataa janaasadiis raacdid, kan kuu yeera aa ajiibtid. marka runtii aad ayay muhiim u tahay, waana wax weyn oo dadka dhisaya bulshada. xadiiskan la sii wadaag dhammaan walaalaha kale, siina sheergare insha allahu tacaala, janaalkana kusoo bir. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.